السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال soo dhawaada meel kasta oo aad ka joogtaan caalamka. Ummadda Soomaaliyeed waxay ka mid tahay ummadaha socotada ah. Haddaad aragto qof Soomaaliya ee jooga Brazil ama qof Soomaaliya ee jooga Uganda ama qof Soomaaliya ee jooga Zanzibar ama qof Soomaaliya ee ku nool Cariga iyo Falastiin hala yaabin. Soomaalidu meel kasta socota ayaynu ku nahnay. Haddaad aado Qubrus, haddaad tagto Australia, meel kasta Soomaali baa joogta. Brazil waa joogan Soomaalida, Argentine waa laga helaa. Si kastaba saaxiibayaal ma aha socotada ama dadka Soomaaliyeed safarkooda barnaamijkeena galabta waxa uu ku saabsan yahay. Sidaad la socoteen toddobaadyadii la soo dhaafay waxa baraha bulshada si weyn u haystay gabar xijaaban oo ku sugan masjid doonaysa in la caawiyo. Laakiin arintaas waxa soo galeen rag badan oo social media caanka ah kuwaas oo baaritaan u galay in gabadhan ay tahay wiil. Soomaalidu maanta waxay maraysaa in la yiraahdo yalis aaminin. In la aaminaa way wanaagsan tahay laakiin waxa ka wanaagsan inaan la aaminin. Haddii maanta lagu soo sheego jaamaca saaxiibaheedeen inuu xaliiman yahay waa inaad aamintaa. Haddii maanta lagu soo sheegay Farxiyo inay tahay wiil Xuseen la dhihi jirana waa inaad aamintaa. Tusaale baan u soo wataa. Tusaalahaas waxa uu sabab u yahay Soomaalida maanta joogta wax kasta ka suurtooda. ninka odaga Daara Calasow iyo groupkiisa ayaa ninkan baaritaan ku sameeyeen iyo rag kaleeto ugu dambeyntiin waxay soo saareen in ninkan uu yahay wada Daara Calasow gabtiisa lama gasho karo ciduu dabadha galo ama baaritaan ku sameeyo xaqiiqdii uu soo saaraya. muuqaalkan yar ka taray la daawada muuqaalkan wuxuu cadeen u yahay in gabadhii wiilka iska dhigtay ama ugu dambeyntii booliiska Kenya ay soo qabteen ilaa yalaas cilaan baa u marsan rajabeeta baa u xiran wax kasta waxa way waxas leedahay dumar. laakiin waxyaabaha la yaabo waxa kamid ah muuqaalka wiilkan ee gabadha iska dhigay markaad aragto xaqiiqdii wuxuu ka shidan yahay gabadha baroon. qofkan aaba dumar ahaa jiray maba isdhehaysidbo sababtu maxay tahay sidoo isu diyaariyay. bal muuqaalkan daawona saaxiib Só moja. One by one. Do faster. Do faster. Move it. Yeah? You are still standing? You are not a lady. waa tahay saaxiibayaal waxa daawateen muuqaalkii wiilkii gabadha iska dhigay oo ciidanku ay qabteen baaritaan lagu sameeyay isagoo darkiisa wixiisa iyo gabigiisba laga dhigay. maalin hore leefku ku jira arkayay isagoo la dhahaa bal isqaawiyo saaxiib markaas uu leeyahay uur baan leeyahay haddii aan isqaawiyo diintu maxay ka qabtaa dadkii leefka weydiinaya su'aalahaas ay xishoonayeen. si kastaba ahaatee Soomaalidu waa laga yaaban yahay nooc kasta oo min la Jabaanna Soomaalida laga helaa. wallaahi billahi talaa illa aaminaya ma jirto. muuqaalkan haddaad maanta uu xaqiijiyay in wiilkan uusan gabar ahayn muuqaalka waxa ay soo dirtay gabar aan aad u jeclahay xaqiiqdii maalinta sana yaabay waxaan isir xawaalada tago ninka gabadha wax gaarsiin masaakiinta gabar sida u hadlaysa ka yaabayso. midda kale muuqaalka iyo filterka waa la bedeli karaa laakiin codka hore ma la bedelo. codka aniga waxaan la yaabaa codka waa cod gabadheed mas qof ka hoos hadlay. war waa idin salaamayaa saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan.